halgan dheer oo naf iyo maalba loo soo horay ayuu ku yimid gooniisitaaga Somaliland bal haddaba waxaynu eegi doonaa 1994kii xuskii ugu horreeyay ee loo sameeyo xafladda 16 Juun kaas oo lagu qabtay khayriida magaalada Hargeysa waqtigaasi Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha hadda wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha waxaynu eegi doonaa xafladdaasi iyo qaabkii ay u dhacday iyo xaaladii waqtiga lagu sugnaa waxaynu barbar dhigi doonaa xuskii xalay lagu qabtay qasriga madaxtooyada Somaliland ee lagu xusayay sanad guuradii 16aad ee ka soo wareegtay waqtiga aynu mustacmaradda Ingiriiska aynu gobonimada ka qaadanay nasiib wanaag waqtiga markuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha oo yahay maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi haddaba guud ahaan waxaynu eegi doonaa farqiga weyn ee u dhaxeeya labada waqti muddada ay ka soo wareegtay 27 sanadood iyo maanta Somaliland halka ay marayso dhinac walba oo leego horumarka ay ka gaadhay
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والآخرة. مركب هوري عاوة حول بلان هلكن أرض السبلان تاغين إيجر أو محضر قبول يعني وأي وقت بنوه كوري وقت الكوري وحنا ما أبقيا إنتي كان قايب كاشاي قابضة يوسف ببرهيسك لكن عاوة lagu maamulaayo wixii lagu xisaabiyo wixii la bixin guddigaas oo ka ahayd dad fara badan oo heer qaran ilaa wasiiro dhalinyaro haween mushaaciradu ay ka qayb qaadatay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa hawshaa ballaaran ee ay isu soo kuween allahu akbar الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مركب الله رئيسا وحمسكم كثيرا لدوينا غير الجيسة هل كحاول في مناسبة sida sharafta leh ee quruxda badan leh ee wadaninimadu ku jirto ee ay munaasabadan u qiimeeyeen. marka labaad hadal badan waa kicin oo ku saabsan munaasabadan waayo berito ilaa looga hadli doonaa ama riwaayadii halka baydinku sasaxiiba wixii laga oran lahaa ee taariikh ahayd iyo wixii lasoo maray ahaa فنانيتنا يا أبوانيتنا ينوضا مجلسة وحاول عقل كوضا يا إيرو بطالنا وحوي والله مركب الله رئيسا إلهي وابها تعالى حالك إنه صوتي إلى المسلم مباد كريعة أمر يصد السنة دبيل وحسنا مناسبة مجلسة لغاتك الشغل وحالك إنه سكورة نبعضه iyadoo aad ogtihiin meelaha waxyaabaha la soo maray iyadoo aad ogtihiin dibkii loo soo galay iyadoo aad ogtihiin dhimashadii loo musay iyadoo aad ogtihiin halkankii meelaha loo soo galay munaasabadani caawa labay kulmisaa waxay kulmisaa hore oo ah ingiriiskii intii lala dagaalamayey ee laga xoreynaya dalka iyo dictaatoorkii waddanka qabsaday ee kolka labaatankii sana ugu dambaysa haysay intii laga xoreynayay walaalayaal lixdankii gobonnimadii ay mehelnay masaraabo uu ku dhacay waa weyde ilaahay baa mahadnaale mar labaad halka inoogu soo celiyey oo aynu maanta gacanteena ku haysano حرية ديمقراطية هاي حمدك دايما إسكالي حمدك دايما إسكالي
mudane madaxweyne wax salaanta calanka u diyaara ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ku soo dhawow aad iyo aad bay farxad igu tahay caawa inaynu ka soo qayb galno innagoo nabada xasiloon horumar samaynay roobku inoo oo barwaaqo ilaahay ina siiyey nimcada badan ee eebba ina siiyey innagoo ku mahadnaqayna inaynu caawa u dabaaldegayno 61 sannadood oo ka soo wareegay maalintii aynu xornimadeenna qaadanay qarnimada markaynu qaadanay qaybtii horeba waa la isku diiday 5 Soomaaliyeed baa loo socday 5tii oo la doono mooyee labadii isu tegay ayaa dawladdii Somaliland markay koonfur tagtay waxba loo ogolaan waayay